ciidanka xoog dalka Soomaalidu waa ciidan sharci ku dhisan sharcina ku dhaqma waad ogtihiin waxa ugu dambeeyay oo ka horeeyay labadii janal la dilay dhacdadii ka dhacday balcad ninkii meelada u dhigay maxaan ku raahdaa ciidankii soo maray meeshaas 11 askari ku dhimatay oo gacanta lagu soo qabtay asagoo fiyow xabsi ku jira meydkii 11 askari meesha ku dhimatay nimankii ka haray 2-3 nin baa ka hartay baabuurka ka dambeeyay ayay ka dambeeyay ninkii soo qabtay haddii ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed uu sharciyada ku dhaqmo ninkaas uu dili lahaa laakiin askariga Soomaaliyeed waa mid damiir leh og sharciga inuu soo ogolayn inuu ayagu dilaan way soo qaadeen maxkamaddu ku xiriyay halkaas waxa marxaati cad ka ah in ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed uu ku dhaqmo sharci muddo badan al-shabaab waxaan siinay waqti badan wax badan waxaan u ogolaanay dhacdooyinka noocaas oo kale ogolaadaan wax badan waxaan ogolaanay isku dayn inay ka soo noqdaan markee kuma faraxsanin inaad dilno wiilasheeni waa rag dadkan bari madaxda ka noqon lahaa waa dadkii bari dadkan hogaamin lahaa laakiin waa la qalday cid alla cid ka soo noqotay waxaan diyaar lanahay sida sharcigu qabo ee dawladda Soomaaliyeed cafiska ugu fiirsay in loogu dhaqmo sida ugu fiican ki asagoo nool soo qabtana caadiyan xabsiga in la geeyo laakiin waxaan u sheegayaa al-shabaab oo hadalkaygu nuxurkiisu ahaa hadda waxa ka dambeeyay si adag baan ula dagaalamayna naxariis aan u sameeynayna malaha macnaheedu maaha inaan markii la arko tooganayna naxariistu waxa weeye naxariis aan u sameeynayna ma jirto marka leeyahay waxa weeye ciqaab adag buu mudan doonaa oo sharciga ciqaab adag buu noqon doonaa uu gali doonaa hadduu galo haddii kalena markuu dagaalamayo ku dhimanayaa dagaalka